magaalada Saylac waa arintaynu ku eegayno barnaamijkeena kan magaalada Saylac ayaa waxay ku taalaa cidhifka waqooyi galbeed ee xeebta Soomaaliland iyadoo u dhow xuduudda dhinaca Djibouti taariikhdii hore waxay xarun u ahaan jirtay Saylac boqortooyooyinkii Ifaad iyo Awdal xilligana waa magaalo madaxda gobolka Salel ee Soomaaliland magaalada Saylac waxay soo dhisneed qarniyo tiro badan waxaa isaga dambeeyay boqortooyooyin badan oo muslim iyo kristaan ba isugu jira waxaa ka soo dhacay dagaalo fara badan iyadoo kulaba qolo ay qabsan jirtay waxaa soo dhisneed muddo fara badan ka hor diinta islaamku intii aanay soo bixin sida ku cad buugga lagu magacaabo The Peribles of Arisian Sea kana warrama taariikhdii hore ee Greeka waxaa lagu sheegay in magaalada Saylac ay jirtay islaamka hortii isla markaasina ay ahayd meel ganacsigu uu ku xoogan yahay ganacsigaasi oo u dhaxeeyay Soomaalidii dhulkan deganeed iyo masaaridii hore hase ahaatee dokumentiskan ama qoraalkan Greeka waxaa lagu sheegay in ay Saylac xilligaasi ahayd mid magac kale leh magacaasi oo la oran jiray Afaleti diinta islaamka ayaa Saylac soo gaadhay wax yar un kadib markii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo axsaabtiisu ay u hijroodeen dhinaca magaalada Madiina waxaana magaalada Saylac imika ka sii muuqda raadad muujinaya in ay Saylac ka mid ahayd meelihii ugu horeeyay qaaradda Afrika ee ay diinta islaamku ay soo gashay sida masjidka qiblateynka kaasi oo leh laba qibladood oo midi Kacbada eegayso midina u jeedo dhinaca Baytul Qudus taasi oo marka noqonaysa in masaajidkan la dhisay intii aan rasuulkeena naxariis guudkiisa aatay aan la farin inuu dadka dhinaca Kacbada u tukiyo inkasta oo imika qiblada hore iyo guud ahaan masaajidka badankiisuba ay baaba'een si aynu haddaba macluumaad dheeraad ah aynu uga sii helo taariikhda faca weyn ee magaalada Saylac bal aynu eegno buugaagtii laga qoray iyo raggii sahamayaasha ahaa ee soo maray amaba wax ka qoray magaalada Saylac dhammaadkii qarnigii 7aad qoraaga la oran jiray Yacquubi ayaa wax ka qoray isagoo oo sheegay in xilliga ay Saylac ahayd magaalo weyn oo ay degan yihiin dad Soomaali ah oo muslimiina taariikhdu markaa ahayd 1331 waxa magaalada Saylac yimi badmareenkii iyo qoraagii caanka ahaa ee u dhashay dalka Morocco ee la oran jiray Ibn Battuta waxa uu ku sheegay buugiisa lagu magacaabo Al-Buldani in uu ka soo kicitimay dalka Yemen kadib markii uu 4 maalmood badda ku soo jirayna halkii ugu horeysay ee uu qaaradda Afrika ka soo caga dhigtay ay ahayd magaalada Saylac waxa uu Ibn Battuta sheegay oo kale in xilligaasi ay Saylac ahayd magaalo aad u weyn oo dhisan isla markaasina ay ku noolaayeen dad madmadow oo muslimiin ah oo haysta madhabta Shaafiiciyada ee diinta islaamka waxaana ay dhaqan jireen buu yiri dadkaasu geel iyo ari Ibn Battuta waxa uu sheegay in xilligaasi Saylac ay lahayd suuq weyn iyo sariibad iyadoo oo magaalada lagu qali jiray buu yiri geela taas oo dhigiisu meel kasta uu daadsanaa sidoo kale kalluun fara badan ayaa lagu isticmaalayay buu yiri Ibn Battuta magaalada Saylac waxay noqotay marin ganacsi oo aad u muhiim ah waxay isku xidhay ganacsigii ka imanayay dalalka Carabta Hindiya ila bariga fog
kaasi oo saylac lagu keeni jiray doonyo kadibna waxaa loo gudbin jiray dhinaca Itoobiya siiba magaalada Harar iyadoo Hararna looga sii qaadi jiray dhinaca gobolada kale ee Itoobiya waxaa lagu qaadi jiray awrtaasi ayaa marka ay soo noqdaanna waxa ay keeni jireen ganacsi kale oo kala duwan oo alaabooyin kala duwan isugu jira kuwaasi oo laga sii dhoofin jiray magaalada Saylac haddaba maadaama ay Saylac noqotay marin weyn oo ganacsi waxaa ileeraada ku soo eegtay boqortooyadii Kiristaanka ee Abasiiniya oo dhinaca kalena walaac ka qabtay diinta Islaamka oo si xoogan ugu fidisay waqtigaasi bariga qaaradda Afrika waqtigaasi ma jirin inta badan xuduudaha maanta la isticmaalo ee dawladaha u dhaxeeya waxaase jiray boqortooyooyin quruumo iyo qabiilo isriixa oo midiba meel ay ka taliso haddaba boqortooyadii Kiristaanka ee Itoobiya waxay go'aan ku gaadhay inay qabsato marinka halbowlaha ah ee Saylac iyadoo markaasi tixgelinaysa istiraatiijiyadeeda dhinaca ganacsiga ku wajahan ee ay u leedahay Saylac Itoobiya si buuxda ayaa markaa Kiristaanka Itoobiya ay gacanta ugu dhigeen magaalada Saylac iyadoo taariikhdaasi lagu tilmaamo bilowgii qarniga 14aad ama 1312 markii ay maraysay laakiin 1342 ayaa muslimiintu ay dib u qabsadeen magaalada Saylac waxaana ay halkaasi ka dhiseen dawlad cusub oo islaam ah oo la magac baxday Ifaat waxay ahayd boqortooyo islaam ah oo xarunteedu ahayd magaalada Saylac dhinaca kale sida ay qorayso taariikhda Itoobiya ee dagaaladii u dhaxeeyay Kiristaanka iyo Muslimka geeska Afrika 1416 ayaa mar kale Kiristaanku ay soo wareereen dawladda Islaamka ee Ifaat waxaana laga qabsaday muslimiinta inta badan dhulkii Itoobiya gudaheeda iyo dhulkan Soomaaliland ku yaalay ee ka tilmeeyeen iyadoo oo dagaalkaasi markaa lagu dilay hogaamiyihii dawladda Islaamka ee Ifaat oo la oran jiray Suldaan Sacaadadiin ayaa la sheegay in lagu deldelay magaalada Saylac balse waxa lagu aasay jasiiradda Sacaadadiin ee ilaa imika magaciisii loo yaqaano maamulkii iyo magacii boqortooyadii Saylac ee Ifaat ayaa markaa halkaasi ku burburay waxaana arrintaasi ay xilligaasi guul weyn u noqotay boqorkii Kiristaanka Itoobiya ee xilligaas Saylac qabsaday isla markaasina dilay Sacaadadiin oo lagu magacaabi jiray Labna Dangal inkasta oo qoraallo kalena ay tilmaamaan in boqorkii Sacaadadiin dilay la oran jiray Emperor Yashiqe sida taariikhdu qorayso muddo kadib ayaa ehelkii Sacaadadiin oo Yemen markii hore u baxsaday ay dib u soo laabteen iyagoo markaa kaashanaya Soomaalidii dhulkan deganeed waxay duleedka Saylac ay ka dhiseen dawlad kale oo islaam ah waxaana la sheegay in halkaa lagu caleema saaray wiilkiisii curad ee uu dhalay Sacaadadiin kaasi oo la oran jiray Sabrudiin sida taariikhdu qorayso dad badan oo kale oo ehelkii Sacaadadiin iyo wiilashiisaba ahaa ayaa maamulka Saylac muddo isaga sii dambeeyay dawladdaasi cusub ee markaasi la dhisayna waxaa loogu magac daray Adal halkaasi oo ah halka magaca Awdal uu markii dambe ka yimi dawladdii Adal markiiba guulo ayay gaadhay waxaana dib u qabsadeen Saylac iyo waliba ilaa inta badan ee dhulkii markii hore laga qabsaday ee geeska Afrika guud ahaan ku yaalay bilowgii qarniga 16aad waxa Adal hogaamiye u noqday Axmed Ibrahim Alqaasi oo ay Soomaalidu u taqaanay Axmed Gurey kaasi oo dadka qaar ay ku sheegaan inuu Soomaali ahaa qaarkoodna ay ku tilmaamaan inuu ka soo jeedo carabtii reer Saylac walow ay jiraan quruumo kale oo iyaguna sheegta Axmed Gurey waxa xarun mar kale u noqotay magaalada Saylac hase ahaatee Imaam Axmed Gurey sida ay qorayso taariikhda dagaaladii Muslimka iyo Kiristaanka Itoobiya waxa uu saldhig weyn u ka samaystay magaalada Harar halkaasi oo uu kaga sii duulay Itoobiya inteeda kale isagoo ka talaabsaday bariga ilaa koonfurta Itoobiya
hase ahaatee markay taariikhdu ahayd 1543 ayaa Itoobiya waxaa qabsaday boqor cusub oo lagu naanaysi jiray ama la oran jiray Galow Wodios kaasi oo dhisay awoodii ciidankiisa isla markaasina waxa ay iska rabsadeen ciidamo ka soo jeeda Boortaqiiska isla markaasina u soo gurmaday Itoobiya waxaana ay taasi u sahashay in Axmed Gurey ay kiristaanku ku dilaan dagaal qaraara oo ka dhacay meesha lagu magacaabo Weyna Dagle oo tirsan galbeedka Itoobiya Saylac waxay weli sii ahayd xarunta maamulka islaamka ilaa bilowgii qarniga 19aad waxaa Saylac soo xukumayay maamulo hoos tagi jiray maamulkii dawladda islaamka ee Cusmaaniyiinta iyadoo ay Saylac joogeen rag wakiil u ahaa dawladdaasi sida Maxamed Cali Baasha oo maamulka Saylac soo hayay intii u dhaxaysay 1822 ilaa 1841 sidoo kale waxa maamulka Saylac isaguna soo qabtay Xaaji Cali Sharmarke oo isagu ka soo jeeday dadka reer Somaliland isla markaasina haystay Saylac intii u dhaxaysay 1842 ilaa 1850 waxa kale oo jiray maamulo ka socday Yemen iyo Masar oo guud ahaan hoos iman jiray maamulkii Cusmaaniyiinta asaatee markay taariikhdu ahayd 1885 ayaa Ingiriisku la wareegay Saylac iyo dhulkii awdal iyo guud ahaan arrigan Somaliland taariikhda Saylac waxyaabaha laga qoray ma yara dadka caanka ah ee kale ee Saylac yimi waxa ka mid ahaa Richard Burton iyo nin kale oo la oran jiray Johnston iyagoo ku tilmaamay in ay Saylac xilligaasi ahayd magaalo ifaysay dadka kale ee sida mugale waxa uga qoray Saylac waxa ka mid ahaa qoraagii caanka ah ee lagu magacaabi jiray Basil Davidson kaasi oo buuggiisa caanka noqday ee lagu magacaabo The Earlier History of East and Central Africa wax badan kaga qoray taariikhda guunka ah ee magaalada Saylac Mr Davidson ayaa buuggiisan dunida caanka ka noqday waxa uu ku xusay in qarnigii 12aad dhulkan iminka loo yaqaan Somaliland ay ka dhisantay dawlad islaami ah oo maamul fiican leh kaasi oo ku hodmay isweydaarsiga ganacsiga isla markaasina xaruntiisu ay ahayd buu yiri magaalada Saylac waxa kale oo qoraagan Davidson uu tilmaamay in ilaa qarnigii 16aad ay jireen dagaallo xoog leh oo u dhaxeeyay muslimiinta xaruntoodu ay ahayd magaalada Saylac ee la kala oran jiray amaba hoos kala tagi jiray boqortooyinkii Ifat iyo Awdal iyo boqortooyadii Kiristaanka Itoobiya oo uu tilmaamay in kolba qolo la jabin jiray kolba cidda Saylac haysataana ay ahayd cidda leh awoodda sare ee geegan geeska Afrika raadadka qadiimiga ah ee ka sii muuqda magaalada Saylac waxa ka mid ah masjidka Qiblateynka sidaynu horeba u soo sheegnay waxa kaliya ee iminka ka sii taagan masjidkani waa mid ka mid ah labadiisii qiblo taasi oo noqonaysa qibladii dambe ee dhinaca iminka loo tukado ee u jeeda xagga Kacbada hase ahaatee qibladii hore iyadu waa ay baabaday taasi oo u jeeday dhinaca Baytul Qudus waxa kale oo loo sheegay in qaar ka mid ah dadka hay'adaha ee baara aasaarta qadiimiga ah iyo waliba dad kale ay qodeen sina baabiyeen xaraagii u dambeeyay ee qibladii dhinaca galbeedka u sii jeeday Captain Kureed waa oday badmaaxa oo da'diisu sida uu noo sheegay ay ku dhowdahay 100 sano waxa uu tilmaamay in muddo 65 sano laga joogo waqtigaasi oo ku beegneed sanadkii 1951 mar uu safar kaga yimi gobolada bari isaga oo u sii jeeda Djibouti uu sii maray magaalada Saylac waxaana uu noo sheegay in xilliga masjidka iyo labadiisa qibladoodba ay wada dhisnaayeen aniga isagoo dhisan ayuu ma koob iyo konton ka almutaano ku tukatay markaa kuma tukanay adigu dikulka waanu fasax baanu helo ergaaba ka soo fasaxaatay sibasana Djibouti ma ku soconay meeshaan dhex maraan magaasha halkan daarahan ma jirin halkan doonyaha ku badweyn halkan ay magaashana badweyn hay lagu tukan jiray badda halkan maris badda badweyn baa dhulkan asmaa wahan badweyn baa doonyo qori laar baa ku xidhnaa jiray halkan kan kastamkiisa xaggan kastamka ka ahaa kastamkii dawladda Baarud Ahmed in muddo ah ayaa uu Saylac joogay waxa uu sheegay in aanu isagu soo gaadhin masjidkan Qiblateyn oo wada dhisan waxaanse si fiican u hubaabuu yiri in labada qibladood ay taagnaayeen waqtigaasi aan imi مسكيتكو وحو أها قبلتين كيه هالكابو أها
ka kalena halkaa buu ahaa liinku halkaa buu ahaa sidaa buu u jeeday halkaay waa halkii qoladii hore intuuna nebigu aanan qoladii diintii hore ee rasuulkii ka horaysay halkay ku weysaysanayeen halkaabay ahayd marka halkaa waxaa ku jirta tuumbadu intaa unba afku leegya biyaha waxay ku shubaysay halkaa badda iyay biyuhu ku shumayeen iyada oo kumbuleeda iyaan anigu meesha imidoonan eegba u baahnay ma anigu mayanana meeshuba dee sidanibay ahayde maxaaban ku tukani ceeda haddaan ku tukanaya aqalka hortiisaan ku tukanide markaa dhulku sidaa buu ahaa wuu bedelmay dee ha la baadi doono astadiina ha la raaco miskiidkiina ha la dhiso dawladuhu taariikhay ku dhintaani taariikhdii ha la raaco kol haddaan soomaaliliin sheeganayna nabad ilaahayna nahay wanaagsan nahay magaceennuna uu fog yahay waxa weeye taariikhdii ha la raaco miskiidkii qiblateenka ha la dhiso taariikhdii ha la soo saaro haba yaraatee ma waraysanba malagii miyuu ku dili mise dibuu kuu yar dhigi unbaan lahaaye maba doodoonaba taariikhdiga horaysa dadka imika ku nool magaalada Saylax ayaa kuwooda waayeelkaahi waxay ku sheegayaan in ilaa 50 sano ee u dambeeyay ay goobjoog u hayeen soona gaareen dhismayaal aad u dhaadheer oo fooqi ah oo fiican balse maanta ma jiraan maxaa ku dhacay magaaladu wada daaray ahayd bandarad bay ahayd 22 sano dawladda sida barra la burburiyay dawgan ku sameeynayna shicib iyo shaqaale u kala shaqayn jiray ya wakaad arkaysan maantana xabad daaro taagan ili gaayro xaaji qeyr leeyahay taagan ili kalma taagna wixiiba dawgaasaan ku buuxin taariikhda Saylax ee waata iyada uu ka arag ya nikad ka wata kala kabiisa leegaaba leeyay iyadu taariikhdeedina isla baabadii taariikhdeedii wakaad arkaysan جب فوق بحد بندرة دار لقحة أو فوق يدار بعدها كان الوحيدة وينا فوقه أيه مجال عمر هذا مجال عمر بحد هذه أربعة عمر المجال marka fooqyadii maxaa xaga ka dhacay fooqyadii wixii dhagaxa waxa lagu guray badwe meesha tan gacan kan xun baa lagu guray iyadoo xitaa anigu jooga halka kan leeyahay waxa lagu guray leeyahay waxa lagu guray gacankaas lagu guray meel kana waa lagu guray meesha kale aad u fahmi maayo laakiin gacankaas badikiisa lagu guray
75 sano oo cimrigiisu yahay maxamuud abaadir inta badan magaalada saylac ayaa ku soo noolaa sheeko noocee ah ayuu haddaba saylac uu ka dhaxlay muxuuse isaga qudhiisu inooga sheegi karaa anigu horta waxaan cimrigayga waa 75 inta badan waxaan joogay saylac baan joogay magaalada geeska afrika maartay waxay sida taariikhda mal anigu horta kuma soo gaareen laakiin horta iyo dunida ku soo gaaray dooyin buu wax kale jiray kuwii shiraac ahaa oo hindi iyo meel kasta adduunka maartay tajiro ka jiray dadka deganay jinsi walba yahuud baa joogayso carab baa joogayso waxaa joogay turki baa joogayo afar baa joogayso intaan ku soo gaadhaano waan ka sii xog badnaa iyaga xukumayeen mar iyaga xukumayeen inta horta waan ku maqlay inta raggaas maartay dawladahaas inay xukumayaan waan ku maqlay inta anigu aan noolaa magaaladu waxay ahayd magaalada caasimada oo daara meedhana dariiqa xagga ka xiga ma jirin sheekha baa ka jiray xaafadada halkan inta kala bannaan bay subaxii kulka la soo baxo halkaas la isugu iman jiray galabtii iyo subaxiiba waxaa lagu ciyaaray cusub halshaati baashan gacanta ku ciyaaran galbeedku taas lagu ciyaari jiray waxaa la aaminsan yahay in saylac ay ahayd marinkii diinta islaamku ay ka soo gashay Soomaaliland waxa kale oo la rumaysan yahay in saxaabadii rasuulku uu u soo diray boqorkii Itoobiya in ay saylac ka soo degeen markii ay noqonayeenna ay halkaasi ka sii dhoofeen horta halkan saylac waa meel weyn oo soo jireen oo taariikh weyn leh waa magaalo jirtay muddo ka badan dhowr kun oo sanadood waxaan oran karnaa waa magaalooyinkii ugu weynaa ee waqtigii islaamku way noo soo maray waxa ku yaala qiblateenkii masaajidkii qiblateenka ahaa ee laba qolood lahaa waa meel xadaarad fog leh waa meel diinta ka soo degtay dadka reer Saylac wadada dhaqan fiican oo isku xiran oo waxaan allaha rabbow anagu reer Saylac baan nahay iyagu ma ahayn qolqolyo xasmi qoon waxaan mad xadaarad gaadhayo reer Saylac la yiraahdo ayaa jirtay marka kulay meesha taariikhdu waa taariikh fog qoraalna waa lagu heli karaa insha Allah taala laakiin intii aan boosday intii aan maqlay taas insha Allah ku soo koobay dadka saylac ku soo noolaa waxaa ka mid ahaa yuhuud ama Israa'iiliyiin kuwaasi oo iyagu soo gaadhay xilliyo dambe oo xitaa xilligii uu Ingiriisku joogay ay qaarkood si joogeen waxa kale oo iyaguna joogay dad Caraba maxay dadkaas u qaban jireen maxay ahayd kaalinta ay lahaayeen dadka dhulkan u dhashay ee joogay waqtiyadaasi waa kan maxamed abaadir yuhuud laba qaybood waxaan u qaybinaa bay'amsa bixin qaybina bahal yaro qararac ilaahay wajiro firaashada ee xaafadada soo jireen ul yaro si loo wariyo qararac xaafadada wariyo oo firaashada cabeen jireen qaarna waxaan dahablayaan iyo bay'amsa bixin arabtuna iyaguna xog bay ku lahaayeen bay'amsa xog bay ku lahaayeen iyagu baa dilo keen jiray wixii Soomaaliya ka qaadan jirtay magaaladani anu intaan joogay Ingiriiskii ilaa kontonkii ilaa kontonkii ayaan rasmi ahaan u degay waxaa kaloo jirtay doonyaha kolka ay